haddii markaa yani difaacagi compromise ku samayso oo dhulka kaliso oo aad istiraad wada isku cadeed wada isku naashnash oo khadka ka saarto waxa soo baxaya malaayiin shay oo cidina xalin dadka martay asmada qaba magaranaysa xasaasiyada qaba iyadoo qoloodu waa noocan oo kale waa maxay hawo u diiday in qofkaas ku cabura qof kasto xasaasiyad qaba waa nooca allergy kamid ah waa nooca xasaasiyada kamid ah dad baa jira dad shin ixtaa qaniinto aan isma dhaqaajinin dad baa jira hadii dhuxul ku reeb yar qaniino ama مثلا maxay shiniyar meel kan ama kanaacir meel ka qaniinto bug isla assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh magaciigu waa Dr. Abdullah Waais doctorka maqaarka xasaasiyada iyo timaha iyo cidiyaha sidoo kale xanuunada ku dhaca xubnaha taranka ee ragga waxaan ka shaqo galaa Procare Dermatology Center oo ku taala suuqa weyn Hargeysa oo xagga galbeedka xigta soo jaamaca weyn maanta waxaynu qaadan doonaa موضوع كوساب سن حساسية كلا دوين محيدي كل عضا قف كبني آدم كا ده نقطة مد مغارك كذا عضا يا ده نقطة مد محيدي تشيلك كوديس محيدي كل عضا إن حساسيته وهرت محيدي قاب دفاع شركة بني آدم كا إلى هو السمية وميكانيزم إلى هي السية قف كبني آدم كا إنه إسكجد دفاعه وحكس طام محيدي شركة كوه محيدي ودي واحد قلات كوه فوريان بوري كوا marka qofka maxay aan xasaasiyad lahayn ama jirkiisu aan maxay waxba difaacayn oo hal shay uu diidan yahay aan difaacayn runtii qofkaas qof مثلا caafimaadkiisu hagaagsan yahay ma qof kasta oo bini aadan oo maxay ku nool maxay adduunyada xasaasiyadu dareemo mar uun bay soo martay in jirkiisaas meel oo magaranaysa wax diiday ama asaaday ama finan ka soo baxeen ama maxay caara ku kacday ma jiriso qof markaa maxay aan xasaasiyadi soo marin inta uu nool yahay marka horta xasaasiyaduhu waxa weeye qaabkaan soo sheegno waa difaac waa wax weeye mechanism oo ah defense inuu maxay qofku shay jirkaasi diidan yahay ku difaaco haddaba qaabkee markaa xasaasiyadu u bilaabantaa ama qaabkee difaacaasi u shaqeeya immune-ka ama difaaca jirku qaybo badan buu leeyahay aad u fara badan oo aan la tirin karin qaybta markaa maxay keeni karto qofkaas inuu xasaasiyad bilaabo waa qayb maxay u diyaarsan mar kasta shay jirkii ku qalaad inuu maxay ka hortago oo uu ka hor keeno waxyaabo maxay antibodies marka shayga soo gelaya wuxuu wataa antigen shaygan maxay markaa lagu difaacayna waa antibodies oo keeni kara inuu maxay waxaas markaa khad ka baxo jirku maxay sheego in wax maxay dhibaato soo galay haddii markaa ay sahlantina oo jirku ka takhalusi karo haddii u baahato markaa in dawo lagu gaadhana ay noqoto in dhakhtarku markaa dawo qori karo xasaasiyadii markaa la tacaali karo marka maxay horta waa qaabkaas xasaasiyadu faa'iido leedahay sideedaba qofku inuu dhibsado ma xasaasiyad haddaanay ahayn mid faraa ka baxday oo qofkii uu khaatiyaan ka taagan yahay laakiin waa qaab sheegaya in jirku haysto immune defense mechanism kiisu fiican yahay oo wax iska difaaci karo xasaasiyadu kala duwan yihiin qaar baa markaa maqaarka lagu yaqaana inta badan maqaarka lagu yaqaanayo qofkii magaranaysa haddii jirkiisa waxaas ka soo baxaan aan oran karnaa maxay waxaas waa xasaasiyad marka dhakhtarku arko uu garan karaa in xasaasiyad tahay amaba qofkii uu sidiisa ugu baraarugsanaan karaa in xasaasiyad tahay da'da haddaba ay ku soo baxaysa xasaasiyadu iyadoo malaha wax loo eego la yiraahdo da'daas ayuun ba xasaasiyadu bilaamaysaa wixii ka dambeeya ma bilaamayso ama waqtigaas ay bilaamaysaa waqti ka horeema bilaabanto iyo shardi male laakiin age kasta xasaasiyada lagu yaqaan ayuu leeyahay tusaale ahaan caruurta haddii maxay waqtiga ay dhashaan ee 40 ka baxaan ama bisha horeba ay dhabanadoo kala casaadaan ama madaxoo kale maxay qolfo ka kacaan ama jirkiisa oo dhan wada casaanay taasi waxay markaa maxay inoo sheegaysaa ilmahaas waxa hayaa inuu boqolkiiba boqol yahay xasaasiyad ama boqolkiiba 99 inuu yahay xasaasiyad ka kacaysa naaska kale marka hooyadu siinayso hadii cuntooyinka naaska marka soo raacayaan amaba ilmahaasi uu ku dhashay xasaasiyad loo yaqaano atopy oo ah in jirkiisu u samaysan yahay inuu waqti hore bilaabo in xasaasiyad dad kastoo maxay ciyaal kastoo atopy ka soo dhashaana inta badan maqaarkoodu waa dry oo waxay u baahdaan emollients waxa loo yaqaano in jirkii magaranaysa la mariyo wax qooya marka waqtigaas age ka hore maxay noloshu bilow tahay ta soo baxda
atopy ama atopic dermatitis inta badan marka hadday madaxa qolof ka kiciso kale waa wax sahlan oo inta bisha horeba hadii daweyn iyo fiican oo dhiiqooyina ama shaambooyin loo qoro iska baabi'i kara inta badan madaxa ma soo noqoto laakiin ta dhamanada iyo jilbaha iyo suxullada taasa xooga u baahan in magaranayay lala irtacaalo inta hore maxay dhowrka sano hore noloshiisa 2 sano 3 sano hore noloshiisa okay mid baa jiraysa hadaba marka waqti dhexe soo bixi karto oo ilmo markuu dhowr iyo 10 soo gaaro magaranayay teenage kid marayo soo bixi karto waa isla atopigan laakiin meelihii dhabanadu ka guurisayo meelahaas maxay laalaabatooyinka ay imanaysaa iyo xaglaha dambe xasay imanaysaa oo dadna waa maxay iyadoo meelaha uu xoqayo sidoo xoqayo casayna taa iyo sidoo kale maxay dadka qaarkood luqunta laakiin wajiga inta badan way ka soo guurtaa marka taa u dheedino tii hore ayay maxay la xiriiraysaa inta badan dhakhtarku markuu weydiiyo yaraantiisa maxaan jiray waxa laga yaabaa in hooyadu ama aabbo ay sheegaan inuu waqti u dhashay maxay ay xasaasiyadu ku bilowday xasaasiyadu waa la kala hidaysan karaa oo dadku way kala hidaysan karaan family badan baa xasaasiyada leh odaygii ama islaantii laga helayaa caruurtuna markaa ay maxay xasaasiyadii bilaabayaan way xasaasiyadaha marka taa laga yimaado waxa iman karta mid kale oo aynu naqaano samboorka qofka hadduu sambooro oo dhiig ka imanayo amaba uu markasta sanka joojooda ku hayo sanka marmarayo indha marmarayo dhanxaniga dalqada maxay si uu uga shanqarsiinayo hindhisayo waxa laga yaabaa ama ilmeynaya boka in ayaduna xasaasiyadaas tahay oo intaas oo sheekeen karto iyadoo uu soo dhashay iyadoo waxa uu ka shaqeynay ay sababtay iyadoo meeshii uu joogaa sababtay cimilada isbedeshay sababtay wax cusub oo markaa gacanta ku haya ay sababeen marka iyaduna waa jirtaa waa allergic rhinitis marka iyadoo ma baahna xagga waqtiga ciyaalka ilaa dadka waaweyn waa laga heli karaa qof kasta samboor uu keeni karaa inta uu nool yahay dadka qaarkood waqtiyada marka seasonku isbedelo xilliyada isbedelanay magaranayay ama dabayl badan ay bilaamayso ama waqti qaboob bilaamayo dad baa xasaasiyad ku kacaan oo high fever ku kacaan oo meelaha qaarkood casaacsaada marka taaqu dheeduna xasaasiyada qayb kamid ah jirkii baa wuxuu diidan yahay wax the environment ka imanaya oo runtii keeni kara inuu qaab difaac ahaan magaranaysa u bilaabo inuu asaado ama keeno meel cuncun waayahay marka aad joogto mesela meel meherada ama mesela gurigaaga joogto dii meeshaas ay leedahay dhas fara badan oo daaqadaha ku ururay oo daaqadaha hoostooda dhas badan ka buuxsamay hadii laga dhastariyo oo neefsato waxa laga yaabaa in aad bilowdo maxay dhaskaasi kugu sameeyo qufac badan hindhiso badan naqasko aad ku haya ma fahamtay oo maxay taasoo kale noqon karto in qofku maxay sababadiisu ay sameynayaan inay yani mesela bronchoconstriction sameynayaan yaraanayaan alveoli oo misaas ugu soo ururayaan oo dibadna naqaskii qof ku dhijinayaan oo nin waan ku cabraa waxyaaba marka wax ka aan dhaska ka oo cabraa marka tide iyo jaafel iyo waxa urta badan iyo tinderka iyo cadarada iyo bukhurka iyo waxa soo dhan unsiyada waxa soo dhan waa ku cabraa de wax kala ma waxa weeye sababadiisa ayaan u diyaarsanayn inay maxay hawada noocaas la tacaamuli karaan marka dibadna difaaca jirku wuxuu keenaya inuu alveoli ama kiishishkii raay fara badnaay hawada gelis wada maxay galaan wada constriction taas soo ururiyaan dibadna ay ka ilaaliyaan shaygaas urta ay irritant-ka inuu gudaha galo dibadna qofku neefsado dhiiggiisa raaco dibadna uu la noolaado sida caadiga uu ka diidayaa jirka aad uga diidaya marka response-ka uu bixinayo xoog badan baa keenay marka qofkaas inuu naqaska ku dhigsan yahay ifan xataa dadka maartay asmada qaba magaranaysa xasaasiyada qaba iyadoo qoloodu waa noocan oo kale waa maxay hawo u diiday uu qofkaas ku cabraa qof kasta oo xasaasiyad qaba waa nooca allergy kamid ah waa nooca xasaasiyada kamid ah waana maxay leeyahay hab dhiska neefsiga oo aan la tacaamulayn wax badan oo maxay anti ku yahay okay dadka qaarkood hadii wax qaniinaan tusaale ahaan jinac oo kale ama kaneec oo kale ama ay qaniinto shinni ama dhuxul kureeb wax kasta hadii qaniinaan waxa maxay ay dadka qaarkood bixin karaan response aggressive ah oo jawaab aggressive ah oo aad u caniif oo qofkiiyo bararayo ma fahamtay keeni kara dadka caadiga wax aanay magaranaysa aad u xasaasiyadoonayo ku xasaasiyadoonayo carruurta yar oo kale hadii mesela kaneec cunto ama wax kala cunaan finay roob fara badan ama qaarkood ka soo yaaci kara qaarna haday 10 sanaad sheegaysaa maalin kasta cunto oo ka qaadimayso
jirkiisu mir ma noqonayo dad baa jira hadda shinni xataa qaniinto aan isma dhaqaajinin dad baa jira haddii dhuxul ku reeb yar qaniino ama masalan maxay shinni yar meel kanta ama kanaaca yar meel ka qaniinto bug isla kacaya waa nooc ka mid ah xasaasiyadiisa oo maxay cirka qabanaysa marka yacni antigenada saa u wareegay jirkiisa ama antigenada isreedsanayay sidoo adag u wareegay maxay jirkiisa ayaa waxay keenayaan in markaba maxay yani maxay jawaab aad maxay aggressive soo saaraan waaya dadka qaarkood hadday qaataan dawooyinka qaar baa kula xasaasiyad tusaale ahaan antibiotica dadka qaarkood hadday qaataan antibioticada sida amoxicillin ampicillin ambien waxyaaba marka ku jiraan oo maxay drugska loo yaqaan penicillin ku jiraan dad baa ku ah maxay hypersensitivity dad baa dawooyin kula dad baa maxay allergy kula dawooyinka sulfada ku jirto sulfonamides ku magaranaysa groupkaas ayay maxay allergy ku leeyno dawada antibiotic marka qaataan ay dadna bug cirkaas la qabanayaan dad baa allergy kula qaar kale de groupyo kala badan de quinoliska kuwan kale maxay cyclosporins ka loo yaqaano kuwan painkillers ka non steroidal anti inflammatory oo kale paracetamol shareska easy ga qaar baa kula maxay xasaasiyad qof baa dawo kasta baa xasaasiyad kula oo maxay haddii loo sameeyo drug culture loo sameeyo مثلا dhacayro laga qaaday la eego maxay culture-kiisa sensitivity ga soo saaro loo arkayo beeshish dhan oo dawo ah oo maxay baashiya sensitivity fara badan cirkaas oo dawadiina aan lagu daweyn karin resistant gasha okay waa badan yihiin waxyaaba maxay xasaasiyada kiciya dadka qaarkood hadday ismariyaan waxyaaba qaarkood dusha iska mariyaan ama ha isku qurxiyaan ama ha isku daweeyaan ama hayihiin basha uu ka shaqeynayo tusaale nin dee kuuli galay oo kale ama guri dhisay oo kale sibirka haddii uu sibirka gacmaha kula jiro 4 saacadood de waa product keeni kara xasaasiyad marka dad baa xasaasiyad kula maxay sibirka dad baa xasaasiyad kula maxay qudaarta ay jarjarayaan meel qudaar la ka shaqeynayaan dad baa xasaasiyad kula maxay haddii waxyaaba kale oo maxay si rinjigo kale iyo waxde tinder oo kale gacanta ay geliyaan xasaasiyadu aad bay u badan tahay dadka hadaba mesela chemical ismariyay dumarka ah sidaa maxay shaygaas ku qurux bata qaar baa xasaasiyad ka qaado madaxba barra haddii casaysan marsato ka warantima amaba uu oday iska marsado xinni black ya waxaad arkaysaa isagoo gig isla kacayo madaxoo dhan kacay indhuu kaceen oo daaminku ay kaceen oo iswada xoqay dumar baa xinna yar ismarnay waqtiyada munaasabaadka oo biyo midhan gelayaan geebigoodaba oo suu ku daalacmayaan ma dhown laga masixi karin gabadh yani waxaad sanadkoo dhan dee khataabano xinni iska marsan dee ma xinno saxaya waxa weeye meeshii gubatay baa dee magaranaysa xinni cabtay dibetana way meeshii uu ka muuqanaya dadka qaarkood waxaan idhahdee waaba xinna rasmi ku noqday iska dhaaf marka yiraahdaan riyaadkiis ka baabiyo dad baa waxa jira haddii ay cuntooyinka qaarkood cunaan keeni kara inay xasaasiyad ka qaadaan cuntadii sida mesela cuntooyinka kalluun ku jiro ama digaag ku jiro ama beed ku jiro ama caanaha qaarkood ku jiraan qamadidu ku jirto lawsku ku jiro waxyaabaha khudaarta qaarkood ay soo raaci karaan marka ay cunaan ayaa jirkoo dhan baa wada bilaabaya inuu maxay kululaado labadaas kululaanaya oo maxay dhigaha kululaanaya oo jirkoo dhan baa wada casaanaya oo dhabanada casaanaya oo waxa arkaysaa isagoo adu doono dibnuhu kaceen adi doono cuncun jirkoo dhan ka bilaabay amaba bilaabaya dee in maxay uu shumaba dee shubanka ku dhiso dawladna xasaasiyada kamid ah nooc dee jirku uu diidan yahay intestine ay diidan yihiin dadna ay bilaabayaan inay hore uga saaraan qofku hadduu waxa ma tago iyo hadduu maxay shumo oo xagga dama ka keeno labadooda wax maxay gudihi diidan yihiin maarta hadduu shayga hindhisana wax dee urti ku diidan yahay oo magaranaysa habdhiski nafsiga uu ugu diidan yahay haddii dusha ka barana wax maxay wixii dusha la mariyay uu ka diiday marka jirkeenu dee subxaanallah marka loo fiirsado dee waxa weeye waa aalad aan la keeni karin qaabka samaysanta qaabkay u shaqeynayso iyo magaranaysa qaabkay u kala socoto aan midnaba maxay lagu baraarugi karin marka wata aayadda quraanka ah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ma koobi kartaan ma tu kaliya dad cidada yar kaliya ka shaqeyso malaayiin shay soo saaraysa oo maxay baasha faa'iido jirka u leedahay okay dadka qaarkood haddii ka waran ay sili soo kala xidhaan ama dhiga xidhaan oo kale ama fargal ama saacad ama kanola lagu xidho sidoo kanola yar marka lagu xidho ayaa meeshii wada casaanaysaa dadna ay maxay amba biyo geliyaanba waa nooc kamid xasaasiyada oo jirku diidan yahay
oo leeyahay shaygaas ma aqbalay marka maxay qofka aadka ugu baraarugsan maxay xasaasiyad waxa ku leeyahay marka hadda sun yar soo iibsato sunkaasi calooshaada yar taabto ama saacad soo iibsato ama waxyaro kale shuuliya ama dhego ama silis ama wax kale oo maxay aad xiran tahay xasaasiyad buu ku keenaya haddii jirkaagu markaas uu leeyahay noocaas haddii مثلا meel dhir dhex marto doog iyo wax dhex marto dhirta qaarkood ba xasaas ku laho aad ku xajiimoonaysayo caara midho ku keenayo gubtaayi midho ka dhigaysa wax yar oo diir haday meel ka marto ama xasharaad yar meel ka maro cirko dhamas la gelaysa oo meesha dhamas la waasaanaysa waxa jira dadka qaarkood hadaba hadii ay la noolyihiin xanuunada qaarkood in ay u nugul yihiin in xasaasiyad keenaan اسمدي سو شيغني اما حيقن سو شيغني qof xasaasiyadiisu ay very active tahay markaba maxay diidaya meel yar oo hawadeedu yar bedelan tahay mar waxad yar oo shaqeynaysa wax xodhow ku kicinaya dadka macaanka qaba de immunity-goodu hoos buu yaala marka ma ogaan karaan waxa xasaasiyada ay ku leeyeen inta badan marka wax badan ayaa arkaysaa oo jirkoodu qabo hadana aanu dareemin dadka maxay dawooyinka qaata kansarka oo kale dadka dawooyinka maxay qaata مثلا xanuuno kale oo immune ku sababo laga daweynayo oo dabetna iyaguna dawooyinkaasi keenay in magarasa manaacadooda ama difaacooda hoos u dhigto dadkaas kale markay dawada qaadanayaan qudhoodu xasaasiyadii ku kici lahayd ma dareemayaan meelo badan oo jirkooda laga arkayo way badan tahay xasaasiyadu waxa ugu muhiimsan qofku marka uu maxay shay dareemo in waxaasi xasaasiyadu ku leeyahay in uu ka fogaado dib kala mare dii qof ila waxa xasaasiyad ku leeyahay hadana waan wadaya de waa maxay waa mowduuc runtii aan la xalin karin dhakhtarna ma xalin karo cid kale ma xalin karto qofku shayga waxa xasaasiyad ku leeyahay waxa ka uu dawo boqolka boqol ah inuu shayga ka fogaado hadii shaygaas uu wado waxa dhacaysa mar dhow in uu gaaro stage chronic allergy chronic oo aan la daweyn karin dawadii xataa aan qaadan karin shayga markuu kugu cusub yahay ogaateen waxa xasaasiyad ku leeyahay jooji waxa yaraanaya wixii jirkiisa dhex wareegayay waxa ilaashanayay ay yaraanayo iska kala baabaayo hawlo kale iska doonay magarasa oo iskaga mashquulaya meelo kale oo xasaasiyada kale cusub iska raadsanay laakiin hadda مثلا aad dhoos sax u siiso markasta shaygi ku allergy ku kicinay anigu digaagan allergy ku leeyahay maalin kastana maxay waxaan fadhiyaa hawlaalkan ka cunayo ama maqaaxidan ka cunayo digaag oo baalkaade macaankiisa ma joojin karo ama مثلا kalluunka ama cunto daayir ama loo iska siibsanayo ama waxa yar kale maxay asma marinayo shaygaas de already hadda jirkaaga qabatisiiso qabatinto dhakhtarna kuma daweyn karo cid kale kuma daweyn karto dadkeen waxay isku qaldaan xasaasiyada iyo cambaarta inta adii maqaarka laga hadlayo xasaasiyada iyo maqaarka xasaasiyada iyo cambaarta ay qaarkood isku qaldi karaan badankooda wax la kala garan karo oo de shay yar isticmaashay ama waxa samaysay ama waxa cuntay ama wax lagu muday hadii wax ka kacaan de cambaar ma madaxooyo Allah jikuu way garanaya laakiin meelaha iska ka casaaday oo in muddaasi ku soo haa dad baa cambaar moodi kara oo qoran kara doctor cambaartaas in badan bay u taalaa dhowrkii bilood mar baan arkaa de markuu dhakhtarku arko wuxuu garan karaa in waxaas tahay cambaar inaan ahayn xasaasiyad tahay dad baa jira marka ilaahay khayr siiyo sida ku qaata talada dawadan marka loo qoro qaata oo dibitana saa ku bogsida qaar baa marka de ma garan karo soo jeeda laakiin wax qoraan may waa cambaar marka laba mid muddo doctorku sameeyaan wuxuu yiraahdaa waa cambaar oo dawada xasaasiyad isaga qoro iyeen de yiraahdaa de wixii cambaar ma ahay maxaynu sameeynaa de waxa yar fiican in doctorka lagu kalsoonaado dawadaasi loo qaato maxay dawadii xasaasiyada weeye sheegeen cambaar maaha markaas de mushkiladaas way soo bixi karaan dadka qaarkood inta badan boqolkiiba 90 dhakhtarkoodu ku kalsoon yihiin waana qaataan dawada waana fiicnaadaan natiijo fiican oo soo celiyaan waxay dhahaan dhakhtarkaas ku bogsaday waxaas oo in badan yahay halkaas uu kaga haray ilaahay shimbirkii igu soo dhiibay dardaaranku wax weeye waxyaabo yar oo sahlan in aad jirkaaga marka aad maxay soo galaan ama adigu aad keentay ama مثلا si kala maxay kula soo xiriiraan hadii aad dareento inuu shayga jirku diidan yahay inaad jirka si qasbi difaaca ilaahay bay siiyay difaacaas waxa uu diidan difaacaas waa gaad hortaagan wax kasto xasaasiyada wax kasto xun oo maxay wax ku keeni kara hadii marka aad yani difaacagi compromise ku samayso oo dhulka kaliso oo aad istiraad wada isku cadeed wada isku naashnash oo khadka ka saarto waxa soo baxaya malaayiin shay oo cidina xalin karin hadii aad isticmaalayso ama cunayso ama aad xiranayso wax xasaasiyad aad ku qabto oo runtii ma garanaysaa jirkaagu maalin kasta saa u bixinayo alarm de ilamaha in doctorku daweyn karo ilamaha cid kale inay ku soo gurban karto waa qof xaruntii ma garanaysaa dibdemiska
isagu gacantiisa ku baabiyay dadana halkan la fadhiya maxay kaalin shidaal oo iska guban karta waqti kasta marka maanta intaas ku soo gabagabeynayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh